بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأن السلام يا دمان مدى الصوماليات ملك استود جوكتان وحمد الله يقولي كبنمو. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. وحنا كان تعسيتي رأي لو قدر يا ولا عليه شلي طالية كوجريو ذي كشيء قلبك كقبل كالسيتي يا ولا لها كلا ويبدأين ما دركت جيردو وينقو بدن تاي تضبط كان كوا ما دركت جعان تعادل وكوب حيو كوا ما دركت جعمين نكوب حاوس خالد ما دركت وبحيو. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. وعجز ما دركت أهويني لما أنتوا وحلا هاي كوي هره يكوا ما دركت هذا ذلك وشهيده إلهي لما أنتوا ضوض النحرستو إنك أنا ما ركت سامري إيبان إلهي نقصي خاصة قيسس كي كبحه وعدنا قولا بنتي إلهي هون نحرستو لما أنتود إنك أنا سامري إيبان أنت كبعد برنامج كوحة أو ما ركت كوساب سيء هاي بالمرحلة دي وقدم بيسي دقالك الشالة كدعا قلبيت كقبل كسيتي كاسي أو ما ركت وجدوين بدن هاي كوغلاميهين oo aan oranayno ama in la isweydiiyahay haboon tahay way dadku maxay ugu dhintaan maalin kasta goobta webiga ama maadaragta badda maxay ugu baaba'ayaan meel kale oo laga maarmaamiyaa la waay labo iyadana waxa warbixinta ku dul istaagi doonaa qodobka labaad ciidamada geesiyaasha ah ee baabaco saddex iyadana waxa wax yar ka oran doonaa dagaalkii dhexmaray dadka walaalaha ah labada beelood beesha Hawiye iyo beesha Ciise dagaalkaas oo aad iyo aad uga xunnahay ayaan bal wax yar iskana ka oran doonaa ha ku bilowno dadka maadaragtay cundufayna waaxigeyga khaasatan dadka maadaragtay toddobaadan ugu dambeeyay shirki aadaamo wixii ka dambeeyay dadka dhimanayay waxay fadlan waxay ku dhintaan webiga dusheeda iyo badda way maxaa maaragtay dadkani badda maalin kasta inay ku dhintaan maxaa sababaya ma isweydiisay weli walaalayaal waxa weeyaan dadku soo dhan horta dadkaaga ku dhaqani waa dad xoolo dhaqataa weey xoolo dhaqataa haday yihiinna dhulku waa abaar waxay u arooraan webiga maadaragtay halka biyo uga sokeeyay ma jiro biyo uga sokeeyay ku ceel iyo maadaragtay biyo roob deemaba jiraba biyaha murtiyaalka uga sokeeyay ma jiraan waxa weeyaan dadkaasi markii hore ama laba arrimood ayay ku noolaayeen waa biyaha roobka iyo ceelal maaragtay dhaadheer oo lagu shubo midkiiba hadduu yar yahay 11 qof kuwaasoo maadaragtay xilliyada abaarta ay xumaatay oo roobka guga la waayo guraba ceelashahay dadkaasi ku tiirsanaayeen waxa kamid ah ceelkii dibira weyne dacar iyo duunyub waa guran yihiin ceelashi haddaba dadkaasi caqabada haysata ayaa ku kaliftay inay halka maadaragtay u arooraan meesha waxa uu sababa dadka horta dadka galbeedka gobolka City ama khaasatan dadka gobolka City ba xuquuqda dawlad deegaanka Soomaalidu hawleeyahay malihin sababtu waxay maadaragtay ku cadaynaysa waxa weeyaan dadkaasi waa la og yahay inuu dagaal ku socdo dawladdu waxay tiraahdaa waxaan ka qabanay waxa kala laga qabtay way booyada dadka miyaa loo geyn kari waa booyadii haddii maadaragtay way lacag farbadan oo makira in karayna la yiri waxa weeyaan ceel riiga biyo dusha yaalin hal ceel oo riiga dawladdu miyaa u qodi kari weyda way ujeeda weeyaan ujeeda laga leeyahay dadka in la baabiyaan loogu talagalay dawladdu waxay tiri booyadaha dadka u kireena oo maadaragtay booyadaha u kireesana u dhaamiyay waxa weeyaan dadka halka cundufo iyo nawaaxigeeda degan magaalada cundufo iska daa baadiye magaaladii cundufo ayaa maadaragtay aanan biyo jirin oo dadku boomboonada gawaarida isjiidka gurada kala koraan oo maalintii waageed bariyo gaarigu la baasaa canfar maalintii ula geli gaaro
dadka meesha cundufo leeyahay hal saddex boodood baa joogta saddexda boodood waxa lagu sheegaa in dadka loo soo kireeyay oo dadka u kireysan yihiin haddaba waxa weeyaan booyada haddii dadka loo soo kireeyay oo dadka loo kireeyay oo muhiim ujeeda dadka ma ahina shaqo kale aynan qabanin oo dadka u kireysan tahay dadka inay biyo bilaash oo aadaan miyaynahay way muxuu halkii marmiil muxuu marayaa madragtay kotor real maxaa loo siinaa halkii litr maxaa shirkaanka biyaha 20 qarsh loo siisanaya xabada booyada ah walaalayaal waa 9,000 oo bir baa lagu gadaa biyaha 9,000 bir dadkii xoolo dhaqatada ahaay haddii ay calaalaba qof iskugu tagaan iyagii arigoogii ma ku filaanaysaa maalin kasta iyo xoolihii meesha jooga waa may weyn jawaabtu haddaba dadkaas hadday kuwa filaato maalin dhaaf ma ku heli karaan biyaha 9,000 bir maalin dhaaf ma ku heli karaan waa may weyn jawaabtu dadka maxay yihiin haddaba walaalayaal dadka ay wadada ay colaad ku habsatay waa dad afarta dhinac laga hareeriyay waa dad saacadna dhufo isku jira saacadna qori riday de waxa weeyaan in ma aragtay hay biyo daraade hay u go'aan waa wax ma aragtay waa ayaan dareynteeda leh dadka dagaalada waxa u dheer xanuuno aanan looga gurmanayno ma aragtay shubana oo dhakhtar daryeela aanan lahayn maxay u dhacayaan waxaasoo dhan waay iska dhaaf xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalidu haddii ay booyado u kireyn weyday war 9 degme ee gobolka City miyay degmadiiba laba booyadood miyay u iibin kari weyday dadka waxa weeyaan xafiiska maxay jira xafiiska inta xafiis ee meesha joogtay bahjad baa maaragtay fadhiga lagu cunayaa dadka miyaa lagu badbaadin kari waayo walaalaha maalin kasta dhimanay mise dadka waa laga dhargi inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan madaragta halkan han baaq uga diraya dadka shacabka dad maamulku maamul waa ka qoosan shacabka City sidoo u dhan yahay dhammaantood waa inay maaragtay dadkooda u gurmadaan waa in dadka loo gurmado sida ugu dhaqsaha badanna baahiyahooga looga jawaabo oo laga badbaadiyo xabada maaragtay maalin kasta biyaha ay badda ku doonayaan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun in qodobka haddii aan maaragtay halka ku dhaafo waxaan maaragtay soo waxay ka hadli doonaa ciidamada baabaco waxa weeyaan dhalinyaradii gobolka City laga qoray loona qoray maqsadka difaaca dadka dhulka inay difaacaan aadiya haddaba dadka ciidanka baabaco waa darbiga ku xeeran ay magaalada cundufo maanta ku taalo weeyaan waa dadka u dhamaaday xorriyadda gobolka City sida u dhanyihiin ciidamada dowladda deegaanka Soomaalida ee gaarka ah ee Liu Boolisku waa wiilasheenii geesiyaal qaran bay ahaayeen way difaaci jireen dadka balse laakiin shaqo kala maanta difaaci dadka shaqo kala ka weynaatayo ina Cagjar baa maaragtay ku shaqaysto Mustafa Cagjar bay dadka u soo qabtaan haddii ay dadka difaacdii yidhaahdiin de shaqada Mustafa meesha ka baxayso Mustafa waay cid dadka u soo qabata marka shaqadaas ay hayaan ciidamada maleesh kuna de maaragtay inkastoo shaqada dad qabashada ay qayb ka yihiin iyagu laakiin dagaalka halkoodu way kaga jiraan laakiin baabaco waa geesiyaasha qaranka ee ku gadaaman maaragtay dhibaatada cadawga hor jooga weeyaan maxaa maaragtay haddaba ciidamada baabaco caqabado badan oo aad iyo aad aan la koobi karin baa walaalayaal maxay yihiin waxa weeyaan ciidamada baabaco 3 cisho ayay biyo la'aan daraadeed hayqadaan 3 beri ayay biyo la'aan daraadeed qadaan iyagoo furinta dagaalka ku jiro maaragtay furinta jooga waxay waayaan waxay maaragtay bariiska jimirka ee la siinayo waxay ku karsadaan cunto kale ma helaan ta inta u dheer waxay tahay walaalayaal arrad ayuu ninka askariga ahi labadii shay oo maalintii uu meesha tagay haw xidhna ayuu xidhayo arrad buu xisho daraadeed magaaladii gel kari laaya haddii maaragtay u baahdaan waxba ay u baahdaan waa dhibaatooyinka maaragtay dagaalka ka hor si haysta ay la nool yihiin weeyaan dhalinyaradaas haddaba dagaalka marka ay galaan maxaa haysta
كدنتاي مهلا ما كدنتاي وبدنتاي كدا وعمل كدنتا مارك درجة دام حقيقة مركل اسكوشه وجدده waxay tahay walaalayaal waxweeyaan mehelo daryeel caafimaad 3 cisho halka ku dhig baxaya 3 cisho ayuu halka ku dhig baxaya way suu dhig bixi gaari lagu soo qaadi ma jiro gaari lagu soo qaado halka laga soo qaado oo dhakhtarka lagu soo gaarsiiyo ma jiro booyad iska dhaafiyada ambulance ka dhaaf haartoobya lagu xaragoonaya ma aragtay meel kasta inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kana hadaba ninka daawacmi sida oo wiilka dhintay ayaa darajada marka la wuxuu waa ciidan horta wuxuu waa ciidanna ayaa dawlad buu maaragtay ku tiirsan yahay budgetkiisu dawlad buu ka soo dhaca xaquu maraade dadka maxaa loo daryeelay waxweeyaan ka dhinta dadkiisa lama daryeelo maaragtay agoontii ay ka tageen geesiyadii dadka u shiiday ayaa daadsan dhulka qurbajoog baa malaa wax soo yar tuurta jirtay taa xagga shacab ahaan iyo xagga maaragtay dadka gobolka city iyo maamulba maaragtay aad iyo aad uga gaabiyo waa ka xunnahay xagga raashinka maxay ku nool yihiin ciidamada baabaco bariis qallalan bay cunaan bariis qallalan ayay cunaan 3 waqti waa haddii ay biyo helaan badde haddii ay biyo waayaanna waa kuwa qadaya maaragtay halka marxaladda haysata واي هذا أوي دولتي ديجان كصوماليدا أوي دتكي قبل كسيته دتك سودي منيين كرد منيين أوي ما دركتي أورادي دتك عاوني عويا واحد قرب الجوك تاعنا لهي أو دتك وركاي ساي مجبتو ولا يا واحد عطلا يا براربنو هنستاكلينو هنستاجرو ciidamada walaalaheena geesiyaasha qaranka hal garab istaagno dhibta la qaybsano dhiigooga loo horayaan aadiya hadii aan maaragtay taalka ku dhaafo waxa dagaalkii daraatooliya ka dhacay afdam iyo degmada mulli intuu dhaxaysa dad Soomaaliyeed baa isku dhintay waa beesha wiye iyo beesha ciise waa dad Soomaaliyeed arrinta kala markay dhacday waxa la malaka dhimay ku guna dhimay baa dadka waa dad naga wada dhintay kaawiye dhintay waa nin iga dhintay ka ciise dhintayna waa ku iga dhintay waxa maaragtay arrinta ka gaabiyay mar dhown baa maalintii afar la isdul dhigay ee beesha wiye dishay ogaas Mustafa waa kii nabad baan qaadanaynaa yiri waxa hadaba in la xakameeyahay odayaal dhaqameedku way ka gaabiyeen halkooda soo kale dadka hoggaanada nabadgelyada ee labada degmo halala xisaabtamaan leena dadka waa dad walaala ilma aragtay la isku dhinto iyaga la isku dilo waa waxa laga fiican yahay shacabku saabareerugan baa leena shacabow waxa weeyaan maxaad ma aragtay walaalka ku dil hadii shide ayaa ka dishay adiga iska dil adiga ayaa iska dil waxa weeyaan waxaan aad iyo aad uga xunnahay waxa wax ma aragtay xasuustayada ku dhigan weeyaan war laga waantooba baan leeyahay sida ugu dhaqsaha badan dadka ahla kala gaaro xukuumadda waxa baaq u dirayna dadka kale waa ka qosolay gudoomiyaha cusub ee gobolka city gudoomiye ina buuxo maxamed buuxo walaalow dadka kala gaar cidii waxa ka dambeysay sidee loola kala saftaa dad labadii degme iyo alla kala safan sidee loola kala safan waay dadka shacabka ciidan baa laynaya lagu leeyahay waa isluulayn labada hoggaan nabadgelyo waa la xisaabtamo waa sharciga la soo hor istaago dhibaatada ayna wixii dhintay way naga dhinteen in halka intayna dhaafin illa xakameeyo baan codsanayaa insha Allah taala inta waxa dhaafsan war dadka raasiti